وان مدحونها سوماليلان waxa uu salaadiin dhaqan uu sheegay inay gobolka Sool u baxayaan caawa fiidkii ayaa waxa soo baxay wararka sheegaya in salaadiinta dhaqanka qaarkood ay u sii bixeen dhanka iyo gobolka Sool oo ay xalinta khilaafaadka galiyaan halka warar kale oo aan helayna ay xaqiijiyeen salaadiinta qaar ee ku jira shirarkaas inaanay bixin hadda khadka si toos ah waxa ugu jira Suldaan Guud oo kamida wafdiga salaadiinta guud ee suldaanka guud ee Somaliland ee la socda Suldaan Aadan Suldaan Amiin Suldaan Faarax ayaa khadka ku jira Suldaan Aadan soo dhawow ugu horeyn aad ku salaamaya waan dhawahay luqmaan aad waan mahadnaqayaa wad mahadsantahay Suldaan ugu horeyn ma jirtaa in adiga iyo suldaanka guud iyo wafdigaad ka mid tihiin ay u baxeen dhanka Sool waan u baxnay waan ku sii jeedaa haddii la yidhaahdo maalmahaas waan gaari doonaa wafdiga yaa ka mid ah sayaa hogaaminaya suldaanka guud Suldaan Daawud Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir ayaa hogaaminaya yaa ka mid ah dhowr suldaan baan nahay waay salaadiintii kalena insha allah way naga daba iman doonaan saan ku tala jiro waay kabaan warkaxbaan u qaar geel duqbaa loo tumaaday Soomaalida ku mahmahdaa kolka odayaaladan nahay waxaan iswaanas odayaal isxilqaamay oo damcay inay dadka ummadda liig islaam badbaadiyaan walaalahood dad aan naga maarmi karin dad aan ka maarmi karin weeyi waan kula damqanaynaa kolka aad iyo aad baan ilaahay u kala saarayna in ilaahay noo fududeeyo ilaahay noo sakhiro walaalaha iyo weeyi dad aanu ka maarmi kara maaha dad kala maarmi karana ma lihin beeshaas Sool digta waan ugu birgaan ugu nahay erge muslim tu islaam tu walaaltinimo tu jaarnimo tu wax isku ahaansho intaba waan isku nahay dad marnaba kala maarmi kara ma lihin waay Suldaan bal waxaad ii sheegtaa suldaanka guud ee beelaha Somaliland Suldaan Daawud iyo adigoo Suldaan Aadan ah marka laga yimaado salaadiinta kale ee idila socota ama madaxda dhaqanka way salaadiinta rabtaan naga soo yaa bari soo baxaysa bari imisa tiinimisa imika ha labadeeda suldaan iyo xogayihii guud ee salaadiinta Somaliland ayaanu nahay kolka kuwa nimanka salaadiinta kalena waan wada soconaa laakiin waanu ka soo horeynaa una way iga daba imanayaan marka miyaad sidaas la qaateen salaadiinta inaad idinku sii baxdaan oo iyaguna ay ka daba imaadaan markaanu aragnay waanu u sheegnay waan ku wada soconaa salaadiinta Suldaan Aadan waxa jirta sidoo kale shir beelihii dhawaan Burcana shirku ugu soo gabagaboobay madax dhaqameedkoodu qaadanayeen warar hordhaco ka soo baxay waxay sheegayeen oo Suldaan Aadan uu beesha ka tirsan yahay beelahan laakiin suldaanka guud ee Somaliland uu yahay Suldaan Daawud baan u jeedaa ay diideen inay hawsha qabtaan oo ergada ka mid noqdaan taa maxaa ka jira adeer tan aan ka hadlayna waa siyaasad maaha waa badbaado aadanimo weeyaan oo walaalaha dad islaam oo أصلاح بين الناس واي أصلاح بين الناس اللي كعذر دارها عيب معها شيء أنا عيب معها هو أحسن يخير يهونات بدا كشرة وكأبير تمك هالسياسة جلية سجايا يا دوخسن أبدا وخيا لكن هدي لهذين حكومة مسؤولية حق هذا طبعا نقول أنت قلي منه هذيك السيدة داركتها هذا روحوي حكومة هدان لا شقين وحنا لا قبلين حكومة نقول ما يسوق كتشوف تتصوص أوكا كل بتشي تشوف إلا لا شقية دين تنا وين فرصة هذا وايه جرادد ويه هذين دوان waxay sheegeen inaanay jirin wax xiriir oo la sameeyay iyo Google taale iyo goori taam xad ka oran lahayd adeer wax weeyaan amba baxayga ku xiran tahay taas imika xagaa joogtaan caawa waxaan joogaa berbera marka ma yogoori baad ku aadantihiin mise meel kale adeer wax weeyaan markaan isku nimaadno horta halkaan ku socdaa waa horta horeysa uur baanu tegaynaa yogoori waanu tegaynaa
meel kasta oo nabadaas waayahay iyagoo waanu tegaynaa garaadada waxay sheegeen inaan la xiriirin gogolna aan lagala hadal oo hadalkii madaxweynaha Soomaaliland sidaa u dhignaa bay beeniyeen goormaad la xiriiraysan garaadada sama jira wax xiriiraad garaadada la sameeysan garaadada waan la xiriirnay yaad kala xiriirteen garaad jaamac garaad Ismaaciil waay markaa maxaad isku garateen waxaanu isku garanay oo wax dhici jiray in isku soo gurmado oo nabad laga wada tashadaa waa muqaddis waay kolkaa waa aslaaxu bayna naas walaalaha iyo inaanu u gurmano dadkan iyo intan oo qaybsano oo ka daaya waa dhibta waxay ka dhacaysaa wax is weydiino gobol nabadgelyo afidino ayaanu ku tala jiraa insha Allah ilaahayna wuu noo rumayn garaad jaamac uu beeniyay inay cidi la soo xiriirtay markaa ma garaad jaamac baan hadalka sax ka oran mise waxa jira wax kale oo la qarinayo oo aad idib kala qarinaysaan adeer markaanu anagu isku baxno sahlo ha baaqa nabadgelyo baaqa gogosha jeedino ha ayaa wax kala cadaan doonaan insha Allah way garaad jaamac wuxuu yiri cidina lama soo xiriirin adna waxa tir wala la xiriiray taas sida dadka ugu cadeyn kartaa salaadiin baa la xiriirtay ii sheegisay waa salaadiinte sida daawadu la xiriiray hogaaminaya imika arrin boy waxba isku ogyihiin garaadada badh garaadada lama wada xiriir laakiin bar waa la xiriiray markaa garaad jaamac garaad Ismaaciil baa kamid ah kuwa la xiriiray way markaa garaadada qaar way diideen gogosha garaad jaamac laftigiisu wuxuu leeyahay gogol loo fidiyay ma jirto ilaa ciidamada laga saaro gobolka Sool arrintaas aad uga dabaalansan haday dhacdo si go'aanada noocaas ah madaxweynaha kalsooni intee leeg bad ka haysataan inaad fulin kartaan adeer wax walba wada hadalkay ku yimaadaan wax waliba wada hadal la'aantii ma socdaan laakiin wada hadalka shuruudaas ku xidhan garaadadu adeer wada hadalku horta waxay marka dadku wada hadlo waxba isla qaataan waxba isla fahmaan laakiin isku imaadka iyo wada hadalku waa shayga kaliya ee aynu wax ku fahmi karno laakiin in la wada hadlay ku xidhan shuruuda ah in horta ciidamada gobolka Sool laga saaro haddii shuruuda la fulin wada hadalba furmi karin garaad jaamac madaxweynaha Soomaaliland kalsooni intee leeg baad ka haysataan adeer madaxweynaha Soomaaliland dalkan iyo dadka isaga ka mas'uula wixii wanaag iyo walaaltinimo iyo wax ku badbaadayaan in la yeelaa waa muqaddis ta kale aan ku leeyahay aad leedahay shuruudu mar baana shaqayn shuruudi ciidankana anagu maanaan geyn meesha iyaga qorshe iyo nidaam iyo walaalnimay ku joogeen meesha dalka iyo dadkana waa u shaqaynayeen ciidan ku duulay maaha waa ciidan horeba u sii joogay oo xaalad laga ahaa hor socday halka Puntland laga qabsaday dhulkan Puntland baa maamuli jirtay Puntland baa laga wareegay nidaam iyo wanaag dhulbaantana nimankii arrintaa waday bay ahaayeen qaladaadka soo baxayna in la saxo baa waajiba laakiin hadda xaaladdu way isbedeshay maamul baa laga dhawaaqay Soomaaliland inay ka baxda laba amartay taas miyaan idin muuqan garaad Sultan adeer wax walba wada hadal bay ku yimaadaan dadku uu tashado oo la wada tashado أحد كرامات بينه لحين دولت بينه وضع السنة بكران كروح كلام شرعية يا هل كان نجمي جالس وضد أين وحسكم هاي وحوضة السنة سكوب هاي سومالي لان وضع تعطي كوبيا سقاشة شركي برعو يكيبو رماء دولت وين وضع السنة waayahay Sultan haddii garaadada kale ay diidaan oo wada hadalka ay diidaan iyo gogoshaasi oo hab dawladeed iyo nidaamka Soomaaliland ay ka cabanayaan ay dhacdaan hal lagu xaliyo maxaad yeelaysaan adeero aslaaxu bayna naas walaalnimo waa badbaado bilaadanka aynu joojino waa ummad hooyooyinka aynu joojino waa qaxa aynu ilaalin badbaadino badbaado ummadeed baanu ku soconaa badbaado shacab mid dawladeed mid ciidan mid jiif bilaadan gedigiisa aynu joogsadaan jecelahay insha Allah dirkaanu nahay ilaahay baanu talas Sultan Dawal Sultan Hassan Sultan Saciid Yusuf Boqor iyo Axmed
iimaan warsame iyo dad kale badan oo idila jooga waftigiina kamid ma aha dadka qaarna waxay leeyihiin salaadiinta laftigooda qaar baan baxaynin taa maxaad ka oran lahayd sultan waan wada hadlaynay waan wada meel baan ka soo wada bilownay waan wada soconaa maanta micraashkii nabiga ahayd waay kolkaa inaan berri inay soo baxaan ballankayagu wey insha allah haddii ila xaggiisa laga helo ballan baan waanoo ballansanahay saacad baan u wada hadalaa way soo socdaan rajaynta way soo socdaan rajaynta leg baad ka qabtaa arrintaas inay soo dhamaato oo aad madax dhaqameedkaas ku dhamaysaan adeer waa nagu waajib inaanu baxno walaalaha iyo u tagno gogol u fidino wada xaajoonno wada hadallo waa nagu waajib muqadisa goormaad berbere kasii baxaysaan beri aroorta haddii laha yidhaa ood toos u tegaysaan yogoori iyo dhanka og dad badan waxay isweydiinayaan salaadiinta madaxweyne muuse muddo dheer albaabadu ka soo xidhay haddana hadday hawshaa galaan kalsoonida uu idi siiyey ayay su-aal gelinayaan sidoo kale arrintaa in madaxweynuhu kuli wasiirada idila dhammaynaya oo wasiirada hawsha idkala shaqaynaya bal kalsooni inta leg baad idinku qabtaan adeer waxaanu ka qabnaa 100% dalka iyo dadka wixii u dana qofna diidi maayo dee reer sool waxay leeyihiin iyo shirka ka soo baxay in somaliland deegaanka ay ka baxdo taase shuruudda ku xidhan wada hadal kastoo imaada markaa kadib baanu wada hadlaynaa oo garaadadu ay caddeeyeen taas ma indhahaad ka qarsanaysaan mise maydaan arkayntaasi inaanay suuragal aanay ka dhigayn wada hadalka iyo nabadda aad socotaan ciidan ku duway oo qabsaday maha ciidanku waa ciidan meesha dalkiisii joogay ciidan qaran buu ahaa ka mid bay ahaayeen iminkana way la joogaan laakiin soo dhibaata may dhicin oo dad may dhiman waxbay dhinteen ha inta noolba la badbaadiyaabaa jirta dagaalka waxunbaa ku dhinta waxba kuma soo dhashaa adeer dad far kaliya fawal ma dhaqdo dad kala goyi kara ma nihin dad isku abaynu nahay dad isku duulay oo isqabsaday ma nihin dad wada xaajooday oo wax dhamaysan kari waaye ma nihin dad baynu nahay islaama dad walaaca dad isdalay dad isku aba dad isku ooda ilaahay baa iskaga baday wixii qaldan aan saxno adeer wax walba waa la dhamayn karaa adduunyada wax walba waa la dhamayn karaa waa laga wada hadli karaa inta nool in la badbaadiyo qarannimada la ilaashado wixii lagu tashadaa ceeb ma xuma wixii ummadi ku tashataa ee lagu kala tashadaa haddii la tasho sanadaas iyo arrintaasi rogrog bay u baahan tahay laakiin halkaa weli ma gaadhayso waayo de ummad kala dhimatay oo sii nacday maaha oo wax cusub gogasha mar baanu ka jeedin doonaa markaanu tagno baaqaanu jeedinaanu ku sheegi doonaa insha allahu halkaanu ka dhigayno adeer waxa weye ka madaxweynaha iyo taayadu wax gogol hore ma jirta gogasha imika annagaa dhigayna haddii laha idhaa hadalkii madaxweynuhu ku sheegay arrintaasi may jirin miya gogol hore oo taalayo salaadii naga horey soo baxday may jirtaa idinku inaad gogol dhigaysaan oo aad hadalkaa ku baaqdeen buu madaxweynuhu sheegay oo aad isla garateen garaadada qaar naga horeeyo shir qabtay oo shir jara qabtay gogol diiday ma jirta tuwaan annaga ahayn laakiin tuu madaxweynuhu lahaa salaadiintii la kulantay baa gogol ku baaqay iyo yogoori baa la dhigayaa taasi ma jirto miya adeer bay waanu dhigi insha allahu markaanu baaqa u jeedinaynaanu u sheegi doonaa baaqnaba halkaanu ka dhigayno insha allah jawaabtii garaadada ma daawatay ay arrintan idinka idinku jawaabayeen inaad ergooyin la dhex gelayo adeer waxa weeye warbaahinta waxaa ka macaan ummadda oo wada hadlaa oo albarta ka fiican iyo laakiin fikirkooda iyo siduu yahay soomaydaan arag adeer istiidi mayno oo walaalahayo kollaba istiidi mayno maxaad filaysaa ugu dambeyn guud iyo gobonnimo insha allah suldaan amiin suldaan faarax suldaanka guud ee beelaha ayuub oo ka mid ah wafdiga salaadiinta ee u ambabaxay dhanka gobolka sool si ay ergo nabadeed ay u noqdaan islamarkaasina gogol ay u dhigaan sida uu sheegay deegaanada og iyo yogoori oo halkaas ay ku wada hadleen madax dhaqameedka iyagu go'aamada soo saaray ama garaadada idhaahda ku sugan gobolka sool ayaa khadka telefoon ku jiray waad mahadsantahay suldaan aadan isagoo suldaanka weliba safar ah ayaa waraysiga u siiyey